كسو بلاو با إلا يا لكن قصة هذا أو با أنت كبلاو جاء مروسو وجاء دي أي جبتي دمين ملك عرسني ولو حوشي قصينا جعشها ولو حوشي قصينا كمار مكرر ولو حوشي قصينا دبريق وصلاحينا بعفينيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا القناة كنا هانيمان وأنا جوا شين حنان دقن مش أنا قدامنا تنوع channel كنا هانيمان وأتعلم إن قال صعتان إن ما أنت وحروا إن كهذلو أو لابو عنده قبل ولا شيء اللي قم جعبه قبل عدده إن سيدا كلتنا وحن ربع إن لابو ده ضد السوشيال ميديا كجرا يقول الكسافرتي محل لها gabadhaas qaarka sabad gareenayo iyo kuwa ka soo horjeeda eedeynayaba inaan la beeraynaho balaa waxay isla dhageysano hadalada gabadhan walaashay waan daawanay xal lafkeeda ay ku hadlaysay balaan yar isla dhageysano isla daawano wax yar oo kamid ah gabadhan xal marka leefka ku jirtay arrimaha ay ka hadlaysay sida ay u hadlaysay kabacdina oo wada falaqeen doona ليس عن أما تعرف عن وانقولستي يانك قولستي متقانا يانك قولستي نيك شو مدري قال يانك قولستي نيك مدري قال يانك قولستي أنا وانك قولستي مدي ما بعدي كورن سيدو يقويسي أنا ما تقويسي كشكي سيدا نقويسي ما نقويسي ما أدني لفرحيني أو أدني لدبارتجيني ما أدني لدبارتجيني ما أدني إلى الدبالدقين مانتي نقصو إلى الدبالدق سيدان وهي وادوغين إلى الدبالدق وانقول استي الدبالدق إلى الدبالدق شاشة دي قرا إيشهر قرا لايفك إلى الدبالدق عاوي واد الدبالدق يانيقا بدا عادنو يستاجيك تمرهن حتى بوليسك ورقدان كوتا عوضانيقا ورقد بان وطاينا الدبالدقو وحتى لايفك بنانك انت لا تقع بودبودو مانتي وان دبالدق يا إدي يستاجيك تمرهن way waalan tahay naag waalan ma aarsato kashinkii looga tagabay isku dhacilooda markaas qolka isku xirtaa naag waalan ma aarsato naag waalan meeshii looga tagabay iska fadhida ma aarsato sida loo qaslana waa qaana sida la iskaga oysiina waa qaana ana ila adeerkay midido igo oysiina u dhiibay oo dhahigo oysiina ana aaminay laakiin midida inta iska bixiyana saga dhaxdhigay نعرى وشك انت إيران طريق السياحة هو يلا كل شيء وسع عبوريا حدنا قلي كبي كبرن خير قبط وحقوق بطو شو بدي كل درشة تدمرك جوكت وحقوق بطائري حقوق بطائري تتكشل كل تليناي تتكل عجها تلافك كوسو دراي وحقوق بطان مانتي أنا كقول استي أديك يفهم الكاد وأوين يسين مانتي وان كقول استي مرة لقيسيجا قبلان عدد كذا أنا قصير إيران صوته هي قفل بهذا oo ku jira social media waxay la tahay inuu soo arkay oo soo daawaday waxa ay ka hadlaysan uu og yahay arintana ma ahaadin hadda soo bilaabatay wax badan ay socotay dabcan gabadhan dhowr jeer ay soo gashay social media iyadoo ka cabanayso wiilka ay caruurta u dhashay ninkeeda iyada ay soo dhoofisay inuu dhibaato u geystay dhibaatadana ma aha mid ka bilaabatay maanta markay soo dhoofisay oo wadanka keento waxay hore u sheegtay gabadhan iyadoo qisadeeda ka sheekeynayso qofkii daawado qofkan daawan YouTube-keeda uu tikra oo soo daawan kara ay kaga hadlaysay qaarad laay sheekadii qisadii xad qaarad laay iyo qalbi dhagax dabcan in saas laha u maleynaa waxay ku sheegtay wiilkaas inuu dhowr jeer xumeeyay haddana dhowr jeer ay kala tageen oo isfuran isku laabteen dhibaatooyin badan uu u geystay intaan wadanka imaan haddii aan qaldaneen موجي هذا لو قفيه أما هذا هالقفيه لكن حرجينا إنه يهوي بالكان ilmaha u dhashay ama wiilkan maantay meesha kaga hadlaysay leedahay waan ka arsaday midiyo igilay midiyaan gali dabcan shalay intaynu soo dhoofin dhibaatada ay gabadhaas mareysay waxay u mareysay ninkan ayadoo dhibaato u mareyso oo biilayso oo Afrika joogo oo noloshii maxaa la dhahaa iyadu wuxuu ku sugo ku noolaanay ayuu dhibaateynay oo dhib u geysanay dhowr jeerna uu furay oo telefoonada ka xirtay oo dhibaatooyin badan u geystay ha ahaatee dhibaatooyinkaas badan intay iska indha tirtay oo ninka dhowr jeer furay ku noqotay ay soo dhoofsatay wadanka keentay waxaanay dhahan Soomaalida kuma mahaan orgiga oor noqon doono eragta wax ka tilmaam
dee qofkii yaqaano ayaa yaqaano micnaha wixii wax tari doono marka hore ayayba muuqdaan oo ay fafaktooda lasoo baxaan. ninkan hadduu noqonayo nin garab ku siinayo naag walbana ninkaad way taqaana. hadduu noqonayo nin garab siinayo, nin garab istaagayo, nin dhibaatada ka dhowrayo, nin waxay usoo martay og hadduu noqonayo markay wadankan keentay, markii wadanka ay joogtay ayuu oo joogay oo ayada wax ka sugayay ayuu ogaan lahaa dhibaatada ay u mareyso, ayuu ogaan lahaa oo respect siin lahaa oo wanaag siin lahaa oo dhibka ka dhaafi lahaa. laakiin asagoo wadanka joogo ku dhibaatayo adiga ku baahan markaa wadanka keenayso ma ila ahan inuu meeshii shalay ku fadhinayo uu de adiga hadalkaaga intuu maqlo adiga sidaa rabto wax kugu sameynayo. sideynana dumar haddaan nahay ama sideynaba haddaa bili-aadan nahay, bili-aadanka 90% waxay wax u sameeyaan inay waxaas wax ka helaan. way yartahay qofka u sameynayo qofkan ha iska noolaadee wax u sameey waa walaalka ama waa ninkaaga ama waxaaskaaga. waxaa jira dad badan oo wax u sameynayo dee qofkan markaa keento waxaa laga yaabaa inuu ku garab istaago, waxaa laga yaabaa inay dhaqaalihiina idin kordhaan, waxaa laga yaabaa inuu ilmaha kula koriyo. dee waxay wax u sameeyaan qofkan markaa keento kalinimada uga baxaysaa, awlaadada kula korinaya, ciilka uga baxaysaa, nolosha maanta haysata midka qurux badana wada galaysiin waa isku soo dhawaanaysiin. laakiin qof walba qorshuu leeyahay, adiga qorshaa leedahay, qofkaana qorshuu leeyahay. waxaa jiro gacantii koowaad oo taade, gacantii labaad oo qofkii aa keensatay adiga oo aad nolosha u hurtay oo asagana qorsho iyo nolol iyo family leh. iyo gacan saddexaad waxaa jirto dhexdiina ku jirto, ama familkiisa ha ahaado ama familkaaga ha ahaado ama asxaab ha noqdo ama dadan waxba idin gelin oo daris ama soomaalinimo idinka dhexeysa ha noqdaan. gabadhan waxay ka dhawaajisay inay shaqayn jirtay, hooyadadna iyo familkeedana ay waxba sii jirin. ninkan biili jirtay, asagoo dacwoonaysay, asaga xooga gelinaysay, xooga saaraysay, waliba gurigeeda aysan oolin hal rooti iyadoo cunto mararka qaarna ay baahi ku seexanaysay. sideedaba waxaa jira wax nafsi la dhahayo, nafsadaada nafsiga aa ka gashay beri uu kaa soo baxaya. familkaaga iyo waalidka xaqa kugu lahayna nafsiga ka gashay uu kasoo baxaya. sideedana wax duceysan ayaa wax duceysan hela, wax duceysan ayaana wax duceysan dhala. haddaad waalidkaa ka duceysato, walaalaha iyo familkaaga iyo dadka xaqa kugu leh iyo ninkaaga iyo xaaskaagaba isku si a u ogaatid, isku sine dee qofna aadan baahinin qofna aadan dharjinin, waxaa helaysaa ducada waalidka mar walba way duxdaa. wax walbana waxaa ka horeeya adiga waalidkaaga. hada hooyad adiga ku dhashay aad iloodid, aad u iloodidinin adiga ku qaba dartiisa. ilaahay kuma saarin xaqa ninkan maalintuu ku mihirsaday asaga ayaa la saaray xaqaaga. asaga ayaa laga rabaa ma dhagax soo jibiyo ama dhul ha soo xaaqo ama buur ha ka soo dhaco ama kirishbooy ha noqdo. maalintii qabilta nikaaxan ee ku dhacday oo asiga mas-uuliyadaada qaaday, maalintaas ayaa loogaga baahan yahay inuu adiga ku biisho meesha doonta jooga xaqaa ku leedahay. laakiin hooyada adiga ku dhashay iyo waalidka adiga ku dhalay adiga xaq kugu leeyihiin. ina adiga dharagtid qofaad adiga xaq ku leedahayna xaqaagii siisid, xaq waalidkaa siisid, taas waa qalad bataatanba, waa qalada waalidkaa ka gasho. gabadhan aniga waxaan leeyahay hal mid uma baahnid walaalayga celiso inaad social media intaa imaadid aa ku qaylisid oysidoo rabeysidoo boodboodidoo adiga aad booro soo jabisid. waxaa u baahan tahay inaad fadhiisatid, maskaxdaada dejisid, qor-aan isi saartid, waalidka intaa u tagtid ku oysidoo tiraahid iyo duceey. waxa kaa maqan waa ducada waalidkaaga iyo bas ina ilaahay u laabatid. nin bili-aadan shalay hadaa u dhibaatootay, shalay dartiis u baahatay, shalay dartiis 100 shaqo aad uga shaqaynaysa adiga awoodaada aanan ahayn, shalay asiga dartiis ilmahaaga u dayacisay. waxaa tiri meelaan ka shaqaynaya bangi anoo xaaqaya gabadheeda intaa banaanka istaajiyo oo saacad u xiran saacadaas ka wacay cunug banaanka taagan. haddii saan loogu soo maro dadkan wadamanka ajoogna waa la yaqaanaa. intaa lagu soo leexdaa la weydiina maxaa meesha ku qabanaysaa, yaa kula joogo. haddana waalidkeed la jooga ama qof la joogina booliiska ugu caya inay cunug yaraa kaligiis meeshaas taagan. dhibaata kaaga ma karta, ilmahaaga ku weyn kartaa. nafsadaana lama dhibaateeyo, naftaan waxayna qaadi karin lama saaro. waxa maanta ka careysiinaya ma ahan in aad u dacwooto wadanka keentay, waxa ka careysiinaya waxa waaye naftaada oo aad saartay culays ayna qaadi karin oo ayada aan waajib ku ahayn.
naftaada dhibaataysay naftaada culays saartay naftaada ka hormarisay naftiisa laakiin asaga markuu imaad wuxuu kuga abaalguday inuu kaatay taada kaleetana aniga asaga ma saarayo eeda oo ma dhahayo wuu qaldan sababtoo ilaa hadda ninkaas hadalkiisa ma maqlin marka aad wax dhageysanaysa ama marka wax xogminaysa labada dhinac ayaa wax laga dhageystaa anaga ma dhageysanin wiilka dhinaciisa mana naqaano wuxuu guriga kaga tagay ama keenay inuu ilmihiisa xaaskiisa dayaco oo noloshiisa ka fogaado oo gabadhii shal saas ugu dhibaatoonaysa awlaad u dhashay uu kaga tago meesha uu kaga dhaqaajiyo oo nolol kaleeto raadsada ama magaalada dhinac ka galo ayagoo u baahan oo lagu gacan iskaga xiran soo wixii keenay ma ogaan karno hadduu asaga nin xun yahay oo asaga doortay noloshaas faraha uga qaad waxba hadhayn waa celinaa waa ka aarsanaa waa yeelaa wadankayga ay iga noqdo ha tago soo waxaan maanta aad duubaysa gabaray waxay kuu galayaan meelay kuu galayaan awlaadaada beri dhageysanayso gabadhaada arkayso maanta gabadhaada waa gabar wax karato waa 8 sano ama 7 sano 9 sano jirtaa anuu 9 sano jirana wax walba uu ogyahay ma kula tahay inuu ku faraxsan yahay inuu hooyada social media ka qaylisay aabaheed ayado cunugaaga beri markuu soo weynaado muxuu dareemi karaa xanuunu dareemaya wuxuu dareemayaa xumaan wuxuu dareemayaa aabbo xun inuu dhalo hooyada dhibaateenayo marka gabaray waxaan kugula talinayaa inaa bataatanba dadkan maxkamadda aad ka dhiganayso maxkamad kuma noqdaan maxkamadna ma ahan in adiga hadalkaaga wadwadaan kusii xumeeyaan qof waalan ka dhigaan moogii wax isxaana ma ku sameynayaan meel fariiso ninkan aad keentay walaalkaayo in adeerkaayo dhageysi in adeerkayba midii geliyay in adeerkayba saan yeelay ka roono iska daa faraha ka qaad nolosha ma doortaa walaalka caliye ma rabtaa inay la noolaatid aniga waa maya okay adduunku wuu yahay aniga walaalkayga tahay intaas dhiba ayaan ku soo maray intaas rafaadaan ku soo maray adiga dartaa u baahday adiga dartaa awlaadeeda u dayac adiga dartaa familkayga beel u siin waay hadaa adiga maanta doorbiday inaad iga tagtid hortaada khayr kartida shala aalaheeda kugu jirto kartida nin ku biilaysay kartida nin ku soo wadaysay kartida nin shirkad ugu qaadaysay laysinka kartida nin noloshiisa ku dhisaysay way kugu jirtaa shala kartida boqolka shaqo ugu shaqeynaysay sida ninkaas u keento nolol ugu sameysay ayaa kugu jirto bax oo shaqeyso oo noloshaada meel ka soo saar inta aad soo fariisato waqti iska lumin lahayd 24 saac social media inta soo fariisato walaal qaylileed waan ka arsaday waan yeelay midiyaan arsiga muxuu laakiin wado loo maruleeyahay ninka markuu ka arka maanta aad qaylinayso oo ooyinayso xabadka garaacanayso dharka tuuranayso cooradaada qayb kamid ah ay banaanka yaaliin muxuu dhahayaa wuxuu leeyahay way iga guuleysatay may bataatan ma dhahaan xataa hada wadan ka celiso ma dhahay way iga guuleysatay wuxuu leeyahay alxamdulillah ana naag baan ka sootay alxamdulillah ilaahay iga soo wado leh sababtoo ay way waarantahay mana waalni waxa ku hayo iskaxdada ka fikireen waxaad ka fikiraysaa qalbiga waxaad ka fikiraysaa waxaad dareemaysaa xanuunkii qofka u soo martay sawirkeeda ku horyaalo laakiin inta miraayad hor istaagtid adiga isfiiri dheh yaa waaye ninkan qofka dhigay yaa waaye ninkan qofka meeshaan keenay yaa waaye noloshaan uu haysto qofka siiyey waa adiga marka inta soo fariistay la jano dheh lajamadan waaye qofka heerkaas oo dhan nin gaarsiisay waa lajamadan qofka nin inta ka roonaatay ayada mas'uuliyadii ninka laga rabay is saartay ee maanta meeshaan iska soo saartay وانا لجمدة كتوسين دونتو إنها عديقة يبقى الأساقاقة إحكا مارانتو وانكو كياني كرتدادا الله يحد كعيش عديقة قانو أنولو مع سلام ميل إسكسو صار عديقة واد إسكسو صار كرتا هادا تقف ميل كسو صارتي عديقة نفتادا ميل كسو صار كرتا انت سيانكو ولا درتان مايا دادك كليتو او سوشيال ميديا هكو جرا قبادا حدر كيدو ودودانا وحان لا يحد هل ولا ليالو وشيغا وناغا gabadhan ku taageer wanaaga hadaad samee karin iska dhaafo hadaadan soo qaadanin oo qalal ka furanin oo meel walba gabadha sawirkeeda la soo saarin ayada ma sii wadwadaysa hadalka qof markuu meel soo fariisto maanta qayliyo cidna duuliyaysa ilaa hadalkeeda meel ka soo qaad way joojinaysaa hadda sheekadu waxay kasoo bilaawday qaarad laay way soo waday maxaa la wada soo kasho waxay qayliso iska baxday hadda maanta waxay keenta uunka arsiga muxumo laakiin wado fiican umar
aarsiga wada fiican oo looga arsado qofka adiga qoslaysid gudahana ka ooynaysid loo tusiyo kartidaada jirto ma ahan aarsiga inaad intaa social media soo fariisatay dhinacyada ka abuurisid oo oysid qaylisid marna qosashid marna oysid soo marka qofka markuu ooynayo qaylinayana waa qof maskaxiyan u dhaawacan iyo qalbiyan ha hadlin intaa dhaawaca ku xanuunkiisa ku hayo walaalay waad dhaawacan tahay intaa dhaawaca ka bogsanaysid ha hadlin marka hore naftaada cilaaj naftaada daawey naftaada ilaabsiyo dhibka ay soo martay naftaada wax walba markaa kasoo daaweysid gudaha banaanka waad ka qurux badan tahay laakiin gudaha holac baa ka shidan waxaa leedahay qashinkii ugu reebo waan iska soo bixiyo isagaan geliye maadan sameynin weli ma sameynin intaa saas u qaylinayso gubanayso anoo ku jeclaas aan kugu sameeyo aad dhehaysid maadan sameynin mana ka aarsanin weli waxaa u sheegaysaa inaad jeceshahay weli waxaa u sheegaysaa inaad ka maarmi karin weli waxaa u sheegaysaa hadduu beri kuu soo laabtay inaad cafinaysid gudahaaga soo daawey naftaada dhakhtaro noqo la sheekayso markaa naftaada daaweysid gudaha ka caafimaatay jismigaaga soo dhis iyo maskaxiyaada noloshaada markaa soo dhistid kadib adoo idambeyn duwamaan naagaha ugu horeysa meel soo istaag bari ka sheekay qisada ha sheekeynin adoo xanuun ku haay saanaa igu dhacday saanaa la yeelay meel cidlaha igaga tegay hadda waxaan haysta male intaa ooyi lahayd kasoo bilaawba ilaa ya laakiin qisadaada oo ba inta ka bilaabatay ja marooso oo ja-di ay jabtay haddaa tiraahad ka waran qisadeeda ba ay kasoo bilaabatay ja markay maraysadna way banjartay oo ja-dii ku burburtay intanuma dhaqaaqan kara intanuma dhaqan kara ja-da intaa toosisid ya gaarsii markay ya gaarsan intaa soo fariisatid dooraad saasaan ahaa dheh shalana saanaa noqday maantana qofkaanaan ahay adoo wax walba kasoo kabsato noloshaada ha noqoto mid taariikh iyo dheerigelin gabdhaha asaagaaga iyo walaadaada u noqoto waan ogahay dumar haddaan nahay waan adagnahay waxaan nahay bir waxaan nahay midi laba af leh xumaan iyo samaan labada dhinacba wax waan u qali karnaa waana ka awood badan nahay ragga xaqiiqatan ninka ragga ee wax uunan awoodin ayaan awoodnaa wuxuunan asaga sameyn karin waa sameynaa marka walaasheeyay ani waxaan ku leeyahay adiga keliya ma aha gabdhaha dhan ee dhaawaca soo gaaray dhan walba waxaan leeyahay walaalayaalow naftiina daaweeya intaadan social media soo fariisanin oo beri aadan ka shalaynin oo beri aadan xumaatadaada inta aragtaadan ka ooynin markaad daweysid dhaawacaaga oo aad dhehidid dhaawacaaga kadib soo fadhiisoo ka hadal kadib qiso ka dhig noloshaada ha ka dhigin qariban qiso qariban ha ka sheekeyninin waxaa ka sheekaysaa qiso laga soo gudbay noloshaada ka dhig qiso wax ku qaadasho leh ee ha ka dhigin qiso qariban waxaa jira markaa yar tahay ama markaa dhalinyaro tahay ama markaa dhawcil markaas madaxa la soo baxday tahay waxaa laga yaabaa inaad jeclaatid wiil dariskaaga uu kula noqdo maalaad adduunka wax ka qurux badan iyo wax ka wanaag badan uusan jirin u dagaalantid oo u waratid sidaa wiilkaas ku kasban lahayd gabarba gabadhay ka qurux badan tahay isku daysid inaad kaga horeysid aad tartan u gashid laakiin muddo marka 2 sano kusoo kordho ama qofkaas aad kala hartiin aad fiirisid wiilkii aad tiraahdo no saan ma u fahmna ma saan waxba ma haysto hooyadiisu la nool yahay wuu fool xun yahay dhaqan ma lahan waa iska ciyaalka xaafada soo dhar qurux badan ma xirno maxaa ku jecleed inaa naftaada inta fiirisid tiraahdo qofkan ma jeclaa jiray intee la ay markaas sidaas oo kaleeto hadda markaa social media inta soo fariisatay noloshaada kaga sheekaysidoo uysidoo qaylisidoo booqdid barri markaa caafimaadid waa mid ku hortaala ka shalayn doonta waxaa dhihi doontaa maxaan dadka isku baray maxaan cadow iskugu jabiyay maskaxdeedii intee jirta maxaa saan u sameeyay marka intaadan tilaabo qaadin 10 jeer ka fikir walaali intaadan tilaabada qaadin 100 jeer kasoo fikir oo dheh okay ma qalantaa tilaabadan inaan maanta qaado aniga maxay iga hor imaanaya inaan qaado no sideedaba gabareeyo ma baahnid inaad hadashid markaa dhaawaca tahay
وما باهنيد مركا دحدك كغبنيsid ina social media inta inaad ku nafistid sababtoo sharaftaada iyo mustaqbalkaaga iyo qofnimadaada wax u dhibaysaa iyo kartidaada iyo gabarnimadaada ha hadlin mar walbana waa dhaha hadlin kulligeen ku dhihi doonaa abaayo ha hadlin inta xanuunsan tahay barnaamijkayga halkaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa waxaana rajeynayaa gabar walba ee adduunka ku dhibaataysan waxaa ilaahay subxaana watacaala u baryaa inuu culeysyada iyo dhibaatooyinka ka dulqaado waxaana kula dardaarmayaa gabarey naftaada iyo waalidkaaga iyo awlaadaada wax walba ka hormarin ma ku dhahay ninkaaga raaliyaha u noqo raaliyo waajibka ilaahay ku saara ka soo bax laakiin waxaa jira wax over ah ninkaaga maalinta wax kaaga baahan waxa u qaban ma ku dhahay wax u qabo laakiin waxaad qabatid haka daba qaylin waad qabatay kartida ku qabataa leedahay biyo daatay caano daatay maxaa la dhahay dabadooda la qabtaa hadduu kaa khasaaray waxaan qofkaaga ku bixisay khasaare kale ha u noqon naftaada iyo qalbigaaga iyo maskaxdaada qalbadaada ha ugu darin iskaga har ku dheh okay miya ha walaalo gacliyo saas ma ku samaysaa waxaan kaa filanaya maaha laakiin dad iyo doorba wax walba ka filaa lagu dhahay dad iyo doorba wax walba kaaga yimaado soo marka haddii waxaad ka filanaynin aad kala kulantid qofka waa bini aadan ka har nafsadaada gadaal ka soo bilaabo inta aan nooshahay jaanisidaada danka faa'iidayso barnaamijkan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad ayaad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan haddii ay intaa nala soo gaartay channelkeena subscribe noo saara asxaabtaadana la wadaag aad iyo aad ayaad mahadsan garab istaageedna wuxuu yahay dhiirigelin iyo shaargareeya in subscribe-na ii saara aad iyo aad ayaad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu